Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan idiin hayaa sheeko cusub. Beri baa waxaa jiri saddex gabdhood oo walaalo ah, waxaana la kala oran jiray Aasiya, Aniisa iyo Asmaa. Waxay la noolaayeen hooyadood. Gurigoodii ayaa cariiri ku noqday maadaama gabdhihii ay weynaadeen. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadood u wacday, waxayna ku tiri gabdhahayga quruxda badnaayo waxaa la gaaray xilligii aad gurigeena dhisan laheedeen. Waxaan idin siinayaa dahab iyo lacag, laakiinse sida aabihiin oo kale haddaad u aqli badan tihiin waxaad dhisan doontaan guri aad adinka leedihiin. Kadib gabdhihii hooyadood ayay macsalaameeyeen, wayna soo baxeen iyagoo lacagtoodii sita. Gabdhihii waxay safarka ku soo jiraanba waxay arkeen meel qurux badan oo xoogaa doog leh. Markaas ayay gabadhii weyneed waxay tiri meeshaan aad ayay u qurux badan tahay. Faraskii ayay ka soo degtay, waxayna tiri halkan ayaan aniga guri ka dhisanayaa, waayo aad ayay ii qancisay. Gabadhii weyneed ayaa waxay tiri gurigeyga waxaan ka dhisanayaa geedo. Gabadhii ugu yareed ayaa waxay tiri abbaayo gurigeeda laga dhisay kuma anfacayo, sababtoo ah duufaan hadday timaado wuu burburayaa ee iska daa. Laakiin gabadhii weyneed way diiday, waxayna ku adkaysatay inay dhisato gurigeeda geedaha ka samaysan. Sababtoo ah aniga kuma qasaarinayo guri lacag lagu dhisana ma hayo, sababtoo ah lacagta waxaan rabaa inaan kusoo gato faras iyo dhar cusub aan ku labisto. Marka geedahan meesha iska yaala ayaan ka dhisanayaa. Kadibna way bilowday inay dhisato. Walaalaheed ayaa ka caawiyay inay gurigeeda dhisato. Kadibna waxay dhisatay guri aad u qurux badan. Kulligoodna way ku wada farxeen. Gabadhii ku xigta oo ahayd Asmaa ayaa waxay go'aan ku qaadatay inay iyadana dhisato guri coos ah. Waxayna tiri aniga waxaan dhisanayaa guri coos oo aad u qurux badan. Kadibna waxaa ku qosashay gabadhii weyneed oo waxay ku tiri guri coos ah sidaas uma awood badno, oo dabeel hadday imaado dhaqso ayay dabeesha qaadanaysaa. Kadibna walaasheed go'aankeeda ayay ku adkaysatay. Maya, sidaas ma aha. Guriga cooska laga dhisa wuxuu ka fiican yahay guriga qoryaha laga dhisay, waayo wuxuu noqonayaa mid dugsi ah oo dhaxanta ma soo galayso, iftiinna ma soo galaayo. Asmaa waxay aragtay qoraxdii oo sii dhacaysa, markaas ayay waxay tiri kaaliya ee caawiya. Laakiinse gabadhii weyneed ayaa waxay tiri aniga kuma caawin karo, waayo waxaan rabaa inaan magaalada aado si aan u soo gato dhar qurux badan aan xirto iyo faras. Kadibna waxay qaadatay boorsadii lacagta iyo dahabka hooyadeed ay soo siisay. Kadibna magaalada ayay aaday. Kadib labadoodii waxay bilaabeen inay gurigii cooska dhisaan. Waxayna soo gureen coos. Kadibna gurigii ayay dhiseen, waxaana sii dhacay gabalkii. Gabadhii ugu yareed oo ahayd Aniisa, gabalkii ayaa iyadana ku dhacay. Wax guri ahna may dhisanin, laakiinse waxay caawisay labadeeda walaala si ay guri u dhistaan. Kadibna way fikirtay, waxay istiri u tag walaashaada weyn si aad caawa ula saaxato. Kadibna waxay u tagtay walaasheedii weyneed, waxayna ku tiri abbaayo saa maanta dhan guri idinla dhisaaye, aniga meel aan saaxdo ma haysto, waxaan rabaa caawa inaan adinka idinla saaxdo. Adii abbaayada kale guri meel aan saaxdo isiiya. Laakiinse nasiib xumo walaasheedii waxay ku tiri gurigan yarka ah aniga oo kaliya ayuu igu filan yahay. Adigana ma deeqo, cuntana kuuma haayo, biyana kuuma haayo, ee aniga meelaa saaxato kuuma haayo, ee meelaa saaxata raadso. Abbaayo hadda waa habeen madow, meelaan alwaaxyo ka soo gato ma aqaano. Berrita ayaa waxaan rabaa inaan magaalada aado si aan alwaaxyo u soo gato, ee caawa xageen saaxdaa. Kadibna waxaa imaaday walaashii weyneed oo la socdaan laba gabdhood oo saaxiibadeed ah. Gabadhii ugu weyneed ee Aasiya ayaa waxay tiri maanta waxaan soo bartay laba gabdhood oo saaxiibaday ayaa magaalada ku soo bartay. Dhar qurux badan ayaan u soo gaday, anigana dhar qurux badan ayaan soo gatay. Kadibna gudaha ayay gashay. Walaasheed yar oo hadalka bilaabin ayay albaabkii ka xiratay. Tii yareed oo masaakiinada ahayd waxay tiri halkeen saaxdaa caawa? Alla ilaahayow, xitaa coos dhulka aan dhigto aan ku saaxdo ma lahan, bannaanka waa qabow. Kadibna bannaankii ayay dab ka shidatay. Kadibna halkaas ayay hurdo iska saaxatay, maadaama ay maanta dhan daalaneed oo walaalaheed ay guri la dhisaysay. Wuxuu habeenkiiba qabowga garaacaba dhaxanta ee u bislaatay. Subaxii waagii ayaa baryay.
waxayna soo toostay aroortii. Kadibna waxay aaday walaasheeda gurigeeda. Walaasheedii dhaxa markay albaabka ku garaacday, laakiinse wax joogay umusa lahayn oo ka furo. Kadibna way ka tagtay. Waxay aaday walaasheedii weyneed gurigeeda. Markay weydiisayna waxay ku tiri waxay aaday heblaayo magaalada si ay uga soo gadato alaab qurux badan, dhar eena ka raadisa magaalada saaxiibo. Miskiinadii yareed way ka xumaatay hadalkaasi. Markaas ayay waxay ku tiri abbaaya kaale adiga i caawi oo gurigeyla dhis. Markaas ayay waxay tiri tii weyneed maya aniga ma kula dhisi karo. Maanta waxaan leeyahay arrimo badan sababtoo ah saaxiibaday ayaa waxay rabtaa inay soo gadato sac maadaama aniga aan soo gatay faras qurux badan. Kadibna gabadhii waxay aragtay gabdhihii saaxiibadeed ahaa oo lacagtii cabiraayo. Markaas ayay ku tiri abaayo lacagtaada maxaad ugu ciyaaraysaa? Waxaa dhici doonto xilli aad lacag u baahan tahay. Xilliga qaboobaha markii la gaarana cunto iyo dhar iyo waxyaalo badan ayaa u baahan tahay. Lacagtaada ha ku ciyaarin. Tii weyneed ayaa waxay tiri waxaasi dhib lahan saaxiibada lacagta way qaybsadaan anigana saaxiibaday markaan lacag waayo iyaga ayaa isiin doona. Kadibna gabadhii yareed way xanaaqday wayna ka soo tagtay. Gabadhii yareed waxay aaday suuqa si ay u soo gadato bulukeeti iyo shamiito ay ku dhisato guriga. Wax badan ayay ku noqnoqotay magaalada. Kadibna waxay wadada ku aragtay nin beeraley ah wuxuuna ku caawiyay gaari gacan si ay ugu soo qaadato dhagaxaanta. Kadib waxay damacday inay walaasheeda weyn caawinaad weydiisato, laakiinse nasiib xumo walaashii weyneed waxay ku mashquulsaneed saaxiibadeeda iyadoo sheeko iyo qosol iyo baashaal ku jiro. Kadibna way isaga tagtay. Waxay u tagtay walaasheedii kale oo iyadana ka weyneed. Markaas ayay waxay weydiisatay garab abaayo i caawi waxaan rabaa inaan guri dhiste. Kadibna waxay ku tiri ma ku caawin karo waayo waxaan qabaa dhar qurux badan dharkaana iskama wasaqeyn karo. Waxay ku tiri maa xiratid dharkii hooyo ay ku siisay. Markaas ayay tiri kuwaasi wax xun ayay ahaayeen waana iska tuuray. Tii yareed waxay bilowday inay gurigeeda dhisato. Tii weyneed ayaa u timid. Waxay ku tiri maxaa qoryo uga dhisan weyday oo waxaan oo lacag ugu khasaarisay. Tii kale oo ku xigta ayaa tiri sideedoo kale ayaa kursi qurux badan iyo dhar qurux badan soo gadan lahayd haddaad ka dhisan lahayd gurigaaga coos oo waxaan oo dhagaxan aad lacag ka bixin lahayd. Waxay ku qaadatay waqti badan inay gurigaasi dhagaxa ah kaligeeda dhisto. Way dhistay kadibna wuxuu noqday guri aad u qurux badan. Markay dhammaysay kadib ayay gurigeedii dhex gashay, laakiinse maysan haysanin sariir iyo alaab ay guriga dhigato. Waxayna tiri waa inaan qudaar abuurtaa. Kadib markay qudaartaas ii soo baxdana aan magaalada u iibgeeyaa si aan ugu soo gato sariir, alaab iyo dhar qurux badan. Kadibna waxay bilowday inay qudaartii abuurato ee maalin walbana ka shaqeyso eena waraabiso. Maalin ayaa dariishada waxay ka aragtay walaasheedii weyneed oo gurigeeda uu ka dudumiyay sac. Sacaas oo ay soo gadatay gabadhi saaxiibteed ahayd. Kadibna way la yaabtay. Walaasheedii weyneed ayaa u timid. Waxay ku tiri abaayo sacan ayaa gurigeyga dumiyay meel aan saaxdana ma haysto. Kadib ayay tiri dhib ma lahan abaayo kaali aniga ila saaxa. Halkii ayay labadoodii habeenkii wada seexdeen. Kadib waxaa bilowday xilligii qaboobaha waxaana da'ayay roob aad u xoog badan. Habeenada ka mid ah ayaa roob zaid u da'ay wuxuuna dumiyay gurigii cooska ahaa oo gabadhii walaasheed lahayd. Kadibna walaashii ayaa albaabka soo garaacday. Waxayna ku tiri abaayo gurigeygii waxaa iga dumiyay roobkii xalay oo weynaa meel aan saaxda ma lahan waana dhibaataysanahay qabow zaid ayaan dareemayaa. Kadibna waxay tiri dhib ma la abaayo kaali ani ila deg. Gabadhii yareed waxay abuuran jirtay qudaarteedii. Qudaartii ayaa soo baxday. Mar walba way fali jirtay gabadha yar. Laakiin walaalaheed way ku qosli jireen oo waxay dhihi jireen waxaan wax macno leh ma ahan. Gabadhii way gurtay. Waxayna u iibgeysay suuqa. Waxayna ka heshay lacag fiican. Waxayna ku iibsatay dhar iyo alaabtii guriga.
Maalin ayagoo magaalada ka soo laabteen ayaa gabadhii yareed oo Aniise ahayd waxay ku tiri walaalaheeda, lacagtii hooyo ee inoo soo siisay ee inagu tiri si fiican u isticmaala, waxaad ku isticmaasheen yacni saaxiibo iyo dhar iyo waxaan faa'iido ahayn. Waxaadna dhisateen guryo coos iyo ka samaysan qoryo oo wax fiican aan ahayn oo markiiba idinka dumay. Laakiinse aniga waxaan dhistay guri adag oon dumaynin oo dhagax ka samaysan, waxaana abuurtay beer, waxayna ii dhashay miro, kadibna waa iibgeeyay, lacag badan ayaana ka helay. Laakiin adinka wax aad haysaan ma lahan, hadeertaana waxaa la gaaray xilliga kuleelaha, lacagtan ayaan idin siinayaa ee qaata, waxaana ku samaysataan nolol fiican oo tii hore oo xumeed ka wanaagsan. Hadda fursad ayaa haysatiin maadaama lacagtii hooyo iyo dahabkii hooyo aad ku ciyaarteen. Hadda fursadiina ha iska beeldareynina ee ha dhisanina guri qashin ah ee waxaa dhisataan guri fiican. Dadaalaa wuu gaaraa, qofka dadaalo ee dulqaata noloshiisa wuxuu noqdaa qof horumar gaaray. Caruurey sheekadeeni halkaas ayay ku eg tahay. Dulqaadka iyo dadaalka hala badiyo. Channelkaygan waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe ii saartaan, like iyo comment.